marka aad haysato qof ku jecel waxaad haysataa dhakhtar adiga ku qaas ah waxa macquul ah inaadan adigu daransanayn qofka ku jecel qiimaha uu ku leeyahay laakiin waxa hubaal ah marka aad haysato qof ku jecel inaad haysato dhakhtar ku qaas ah iyo wax dad badani aysan haysan qofka ku jecel waxa uu kula qaybsadaa waxa aad ku sugan tahay farxad iyo murugaba qofka ku jecel waxa uu ka reebaa waxyaabaha xunxun halka uu kugu toosiyo waxyaabaha fiican qofka ku jecel kama fikiro farxadiisa oo waayo wuxuu ka fikiraa adiga farxadaada sababtoo ah micnaha meesha ku jira ayaa ah in farxadiisu ay tahay farxadaada qofka ku jecel wuxuu inta badan raadiyaa waxa aad adigu jeceshahay ama aad danayso taasoo macnaheedu tahay inaad waxaad rabto adiga uu rabo sida uu adiga kuu rabo qofka ku jecel kuguma qasbo waxa aadan rabin kuguma xujeeyo waxa aadan rabin qofka ku jecel waxa uu ka fikiraa caafimaadkaaga taasna waxa cadayn u ah inuu waqti kasta ka wareysto xaaladaada caafimaad